hergelinta ceelbiyoodkan oo iska kaashan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adda badbaadada carruurta Save the Children ayaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan maalintiiba 1,000 qof oo kamid ah danyarta ku nool degmada Daynile ee gobolka Banaadir. wakiilka hay'adda badbaadada carruurta ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Axmed Macalin Cumar ayaa ka warbixiyay mashruucan lagu hergeliyay ceelbiyoodka. runtii waxa wax lagu faana ah oo maanta aan rabaa inaan hoosta ka wada xariiqno in iskaashi ka dhaxeeya dawladda bulshada iyo hay'adda ay ku suurta gashay in lagu hirgeliyo ceelbiyood awood u leh inuu biyo siiyo ilaa 5,000 oo qoys haddii sida saxda looga faa'iideysto laakiin hadda qorshaha ugu horeeya 1,000 qoys inuu biyo siiyo ay tahay uu ku bilaabo wajigiisa koowaad. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Daynile gobolka Banaadir Maxamed Cabduqaadir Jacfar Yare oo lagu wareejiyay ayaa ka mahadceliyay hergelinta ceelkan. si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa Save the Children oo runtii aan la'aanteed maantay barakacyaal halkaan degan oo runtii anaga maantana hoos jooga aanan maamuli kari lahayn haddaysan biyo iyo adeegyo kale oo fara badan oo ayna soo gaarsiin lahayn. sidoo kale waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa wasaaradda oo runtii iyaduna ka mid ahayd go'aanadii lagu doortay Daynile dhinaceeda ka qaadatay runtii waqti dheer aan isla soo qaadanay mashruucan oo riyaa aan isla soo bilownay maantana oo halkaan soo gaaray. ceelbiyood kale ayaa laga daafuray degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxaana ka faa'iideysan doona 19,000 oo qof sida la qorsheeyay. waxaana ceelbiyoodkan lagu wareejiyay shirkadda Weheliye oo ka shaqeysa arrimaha biyaha isla markaana ogolaansho ka haysata maamulka degmada Kaxda. ceelkan waa mid ka mid ah ceelasha ugu biyaha badan ee laga qoday degmada Kaxda. waa ceel loogu talagalay inuu adeego bulshada deegaanka iyo sidoo kale barakacyaasha ku nool degmada Kaxda. ceelashan oo aan wareejinay maanta kana uu ka yahay kii labaad qorshaha laga lahaa waxay ahayd in lagu yareeyo culeysyada baahiyaha biyaha ay ka jira deegaanadan. agaasimaha biyaha iyo deegaanka gobolka Banaadir Cabdullaahi Xasan Nuune ayaa sheegay in maamul ahaan ay kor joogteen doonaan sidii ceelashan ay muddo badan u shaqeyn lahaayeen. annaga waxaan nahay dadkii beneficiary-ga oo ka faa'iideysanayay mashruucan iyo ceelkan. waajibaadkana saaran waxaa waaye inaan ka warhayno maintenance-kiisa iyo sida uu ku sii shaqeyn lahaa iyo waaritaankiisa dadku deegaankana ay uga faa'iideysan lahaayeen biyaha iyadoo aan ognahay xaaladaha lagu jiro baahida biyaha loo qabo culeysyada biyo la'aanta deegaanka ka jiro annagoo og waqtiga xaaladda hadda lagu jiro COVID-19 in aad loogu baahan yahay nadaafadda iyo dhinaca farxalka iyo biyuhu ay yihiin daruuriyaadka ugu horeeya ee looga hortagi karo xanuunka COVID-19. agaasimaha waaxda biyaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Cali Maxamuud Xirsi ayaa sheegay in qorshaha wasaaraddu uu ka mid yahay sidii bulshada Soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa biyo nadiif ah. dowladda federaalka waxay leedahay qorshe national strategic plan ama qorshe qaran bay leedahay. qorshaha qaranku wuxuu leeyahay mudnaanaha fulintooda iyo hirgelintoodu oo ah in dadka bulshada in la gaarsiiyo biyo taas oo ku qoran qorshaheena qaranka bartilmaameedyada caalamiga oo jira iyo kuwa nationalka ama qaranka intaba waxaa ah in la gaarsiiyo bulshada biyo in la gaarsiiyo. Cabduqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho.